inta aad dunida ku nooshahay ha iloobin geerida nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri had iyo goor waxaad xusuustiisa badisaan kan macaanka iyo raaxada gooya oo ah geerida maalin maalmaha kamid ah ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo aaday dhinaca qubuuraha si uu uga qayb galo qof la aasayay markuu nabigu soo gaaray qabriga afkiisa ayuu nabigu fariistay oo hin ayuu bilaabay ilmadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo baxday ilaa ay qoysay ciidii saarneed qabriga saxaabadii nabigu waxa ay bilaabeen in ay aamusaan ayagoo la yaaban oo hinta nabiga calayhi salaatu wasalaam wax yar ka bacdi ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ooynaya waxa uu saxaabada ku yiri walaalahaygiiyow tan oo kale u diyaar garooba waxa ay soo maraysaa qof kasta oo idin kamid ah nin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu weydiiyay qofka dadka ugu aqliga badan waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka had iyo goor xusuusta geerida oo had iyo jeerna u diyaar garooba kuwaas ah kuwa dadka ugu aqliga badan waxayna la tageen sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhiro waxaana wariyay ibnu maaja allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa ku leeyahay suuratu al-imraan aayadda 185 kullu nafsin zaa'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور naf walba waxa ay dhadhaminaysaa geerida maalinta qiyaamaha qof walba wixii camal ah oo la yimid ayaanu siinaynaa qofkii laga dheereeyay naarta oo jannada la geliyo waa uu liibaanay nolosha adduunyaduna waa nolol wax kadis ah qof walba uu diyaar garow iskana ilaali waxyaabaha xunxun ee naarta aad ku mudan kartid ogowna inuu berita Allah kula xisaabtami doono wixii aad adduunka ku soo fashay xumaan iyo samaan intaba